toban xaqiiqooyin ku saabsan jacaylka social media. Waa jacayl saa'idka sanadihii u dambeeyay social mediaha. Adigoo Soomaaliya jooga ayaa waxaad jacayl u qaadaysaan qof jooga wadamo kale. Taasi waa dabeecadaha jacaylka, micno ma lahan distansiga. Jacayl waa jacayl, balse waxaa jirta xaqiiqooyin aad isku aragtay welina aadan fahmin. Haddaba maxay kala yihiin? Jacaylka internetka waxyaabo badan oo uu bedelo ayaa jirto oo ku saabsan sidaad u fikirto shaqadaada. Inta badan waxaad rajaynaysaan qofkaas mar uun inaad gacmaha isqabsataan. Muuqaalkan bilaabano. 1. Dulqaadkaaga wuu yareeyaa. Sababta tani ku dhacda maahan waxaad horey u fahansanayd. Waxaad isku aragtay inaadan in yar xitaa dulqaadan karin. Haddii aad aragto waxaadan filayn, tusaale gabadhii ama wiil aad jecleed ayaa waxba isaaskooda ku soo sheergareeyeen. Markiiba waad fiirisay, dan waxaad qaadatay go'aan xitaa adigoon hubsan waxyaabahaasi waxa ay yihiin. Micnaheedu waa inuu kugu yaryahay dulqaadka. Totally waxaa laga yaabaa inaadan horey u lahayn dabeecadaas, balse ay hadda imaatay. Habeen ka mid ah habeenada hadduu kula hadli waayo, dulqaadkaaga wuxuu tagaa 0, sidii qof aan muddo lala hadlin oo kale. Number 2. Masayr badan. Qofkan kuma fahmaayo waayo kulama joogo. Istaadskooda ay wax soo dhigeen. Waa aragtay xitaa macquul inay tahay gabar inay soo saarteen, ama wiilkaasoo aysan xiriiro ka dhaxayn, balse si saaxiibtinimo ama walaal ahaan u soo saartay. Then adigu already waad ka hinaastay. Badanaa ma weydiinaysid, markiiba go'aan ayaad qaadanaysaa. Taasina uma wanaagsana habsocodka xiriirka. Hadalkaagana wuxuu noqonayaa mid ay ku jirto xanaaq iyo hadallo xun. Waxyaabahaasi waxay keenaan inuu xiriirkiina burburo. 3. Xanaaqa badan. Qofkaaga waa online, haddana kulama hadlaayo. Wax baad u dirtay, wuu ka aamusay. 3 shay ayaad isku darsanaysaa: hinaaso, xanaaq iyo dulqaad la'aan. Macquul qofkaas inuu mashquul yahay, ama xitaa waxaa macquul ah inuu ku jiro waxbarasho. Adiguna waxaad aragtaa keliya inuu yahay online. Kaaga sii daran, qofku wuu kaa fog yahay, kuma sii xisaabtamaysid waqtiyadu inay kala duwan yihiin. Waxaa muhiimada ah in loo dulqaato, la isweydiiyo waxa qaldan, oo aan lagu degdegin kala tegidda xiriirada. Number 4. Shaki badan. Xitaa wuxuu keenaa noloshaada caadiga inuu saameyn ku yeesho shakiga. Wax walba oo maskaxdeena ku soo laalaabtaa ugu dambeyn way barataa. Haddii aad caadaysato maalin kasta inaad wanaag ku hadasho, ugu dambeyn maskaxdaada waxay baranaysaa wanaaga, si kastoo dadka kula dhaqamaan. Haddii in badan aad caadaysato shakiga, way la qabsanaysaa. Noloshaada caadigahna shakigaas ayay ku noolaanaysaa, mana iska joojin kartid. Iska daa shakiga badan. Dabcan haddayba ku jecel yihiin, iyagaa kuu sheegi doonaa wax walba oo aad ka shaki qabto. Tusaale ahaan, hadduu hal habeen si wanaagsan kugula hadli waayo, waxaad ka shakinaysaa in qof kale waqti la qaadan doono, taasoo burburin karta xiriirkaas. Number 5. Waxaa yaraadaa waqtiyada kale ee caadiga. Waxaan kala jeedaa inta ugu badan waqtigaaga netka ayaad ku qaadataa, sidaad u sugayso, sidaad u fiirinayso online-kooda. Waxaa hoos u dhacaya shaqooyinkaaga kale, oo wuxuu saameynayaa noloshaada caadiga. Taasi oo inta badan sabab u ah jacaylka aad ka dhisatay social mediaha. Waqti badan ayaad ku bixisaa, fikirkaaga qofkaas ayaa qaatay. Waxa sidaa weyn kuma lahan noloshaada kale. Number 6. Kama ahaan kartid netka. Sidaan horey u soo sheegay, wax walba oo maskaxdeena ku soo laalaabtaa way la qabsataa, mana joojiso ku dhaqanka caadadaas. Haddii aad joogtaysay qofka inaad waqti la qaadato, marna ma ogolaanaysid inaad weydo netkaas. Haddii uu kaa go'o, xitaa siday noqotoba, waxaad tahay qofkii lacag u raadsha. Dabeecadahaasina waxay saameyn doontaa noloshaada caadiga. 7. Haddii aad weydo qofkaas, waad murugoonaysaa. Inkastoo jacaylka caadiga uu ka duwan yahay, balse dabeecada murugada jacaylkoo dhan ayaa leh. Hadduu qofka uu kaa fog yahay, ama uu jiro waddan ka baxsan halka aad joogto, waxaa yaraataa qofkaas inaad si kale ula xiriirto. Keliya netkaas ayaad kala hadashaa. Qofkii waad weyday, murugo ayaad la seexan. Haddii baad jacayl u hayso qof aad iska barateen socialka, waad murugoon doontaa, waayo qofkaasi waxaa laga yaabaa isbuucyada ugu horeeya inuu laasimo ama joogteeyo xiriirintaada. Wixii intaa ka dambeeya laga yaabay inuu yaraado xiisaha. adiguna aad murugooto, aadna isweydiiso waxa qaldan.
sideed wax walba qofkaas ayaa kaaga muhiimsan. waa sax jacaylkaaga waa ku muhiim, laakiin markaad netka soo gasho markiiba qofkaas fariimihiisa ayaa fiirinaysaa ama qofkaas ayaad onlinekiisa fiirinaysaa. haddii aysan kuu soo dhicin fariinkaaga imaatay dhankooda, sidoo kalena uu qofkaasi online yahay, sidii qodobkii 7aad ayaa dhacaysa oo waad murugoonaysaa, waad walwalaysaa, waxaad isweydiinaysaa waxa qaldan, si kale oo aad ula xiriirtana ma lahan. labada qodob ugu dambeeya waa digniin aan siinayo qof walba oo muuqaalka intaan la soo gaaray. 9 ha ku kalsoonaan qofka social mediaha ku jiro ilaa in muddo ah. waxaa inta badani ku badan asxaabtiisa kale ama xiriiro badan ha wado ama adigu daacad ku ahaadaba, koley waa qof ay ku badan tahay saaxiibadiisa kale. sidaasi la mid ahna waxaa macquul ah wax dan aynuusan kaa lahayn, soo in lays barto way wanaagsan tahay, laakiin inaad qof noloshaada gacantiisa u geliso waa laga wanaagsan yahay. markaana waxaan ku dhihi lahaa qof ha wada siin noloshaada oo dhan. 10 waqtiyada ugu horeeya ilaa aad kala socoto bilooyin, sawiradaada u dir waa caadi, laakiin muuqaaladaada ka ilaali. sidoo kale hadduu lahaado dhaqamo aanan wanaagsanayn, markiiba iska block garey. si qaldan ayay wax u dhici doonaan, noloshaadan qof gacantiisa ha gelin. qodobkani waxaan si saa'id ah ula hadlayaa gabdhaha walaalahayga ah. waxaa had iyo jeer ogaataa inaysan raggu isku mid ahayn. qaar baa ku dhihi doona adigoo sidaa ay soo duub noloshaada hadda inaysan saameyn ku yeelan ayaa macquul ah, laakiin markaad meel wanaagsan joogto ayay saameyn kugu yeelan kartaa, ama sharaftaada ayaa lagu ceebaysan doonaa. waxyaabaha la yaabka leh ayaa ah waxaa ragga ku jira kuwa aanan wanaagsanayn. markaa iska ilaali qofka aad noloshaada siinaysid. qofna xaq uma yeelan inuu noloshaada ogaado ilaa in qofkaas yahay kan dunida ku qaalisan ama kan dunida kugu jecel adiga. qof aadan hubin jacaylkiisa, aadan garanaynin waxa uu qabto, sida uu ku jecel yahay, weligiinan si caadi aadan isku arkin, sidee noloshaada gacantiisa u gelin kartaa? soo iska fasax qofka aadan jacaylkiisa ku dareemaynin deganaan, kalsooni, aaminaad iyo hubanti. jacaylka dhabta waa inuu yeeshaa dhammaan astaamaha wanaagsan sida shaki la'aanta, aaminaadda, kalsooni, daacadnimo, qalbi furnaan, dhowrid iyo ixtiraam. intaasna sida lagu helaana maahan wax fudud. qof shalay kugu soo biiray maanta intaan kuma siin karo, waayo waxay u baahan tahay safarkaana marna ma noqon karo hal dhinac oo keliya, waa inuu ku saleysnaado labada dhinac. muuqaalka intaas ayaan kusoo koobayaa saaxiibayaal, waan rajaynayaa inaad wax niga faa'iiday. insha allah antil muuqaalkeena xiga. salaam.